raxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal soo dhawaada mar kale iyo xasan iyo channelka nolosha maanta waxaan soo qaadanaynaa barnaamijka ah Sharma Boy maxaa ka sii noqday Sharma Boy maxaa ka khaldamay waxa uu soo galay live Instagram-kiisa halkaasi uu run ahaantii afka furtay oo uu mowduucyo kala duwan run ahaantii ka hadlay waxaan dul joogsanaynaa saamaynta ay ku yeelan doonto mustaqbalkiisa dambe ee dhinaca fanka ayaan du joogsan doonaa haddaad imkana kusoo birteen please like saara si uu u gaadho barnaamijkani nooc walba oo isticmaalaya in YouTube-ka waayo marka lasii faafiyo waxa weeyaan barnaamijku waa sii xiiso badnaanaya Sharma Boy waa kuma waa fanaan Soomaaliyeed oo run ahaantii dhinaca raabka baryahan dambe lasoo hulin waayay isagoo markaa fankiisu ka hana qaaday magaalada Muqdisho oo uu taageero aad u badan run ahaantii ku leeyahay waxa ay baryahan dambe ayna haysteen fanaanka kale ee markaa King of the Rap la yiraahdo ee maxaan ku dhahdaa ilka case oo ay heeso dhinaca maxaan ku dhahaa hanjabaada ay soo dhaafsanayeen siday doontaba hayn ha noqotee live-kii Instagram-ku soo galay markaa shalay toole ayaa ka dhigaysa live-kii ugu foosha xumaa uguna markaa ceebta badna ee abid fanaan oo live uu soo galo ummadda uu la wadaago Sharma Boy heestiisii ugu dambeysay Hargeysa halo mudane Muuse Biixi ayaa keentay markaasi hadalhayn aad u ballaaran oo dadka qaarkood siyaabo kala duwan ay u macnaysteen oo yidhaahdeen waa fariin uu iska sii horeysiinayo hase ahaatee meel uu reebayba ma jirto oonan ahayn gobolka Banaadir iyo ciyaar xamar uu run ahaantii yidhi iyaka oo keliya ayay ugu furan isagoo hadlaya waa kan ila daawo siday doontaba hayn ha noqotee markaad klibka aragto maxaa kugu soo dhacaya hase ahaatee maxay noqonaysaa mustaqbalka faneed ee fanaankaasi isagii oo raabka isagu samaysanayay siday doontaba ha noqotee haddana dad dhalinyaro ah ay aad u xiiseynayaan heesihiisa aadna ay u daawanayeen iyadii oo xidmad sidaa u badan ayna ku jirin haddana sida uu iskugu toosinayo dhalinyarta dambe ayaa aad ula dhacsanayd waxaana uu noqon karayay oon odhan karaynay markaasi starka hadda soo baxaya oo aan odhan karno waxa uu noqonayay markaasi ku bedela aragtida iyo sida ay fanka u arkaan markaa dhalinyartu iyagoo aad uga daba dhacay ereyada faniga ah iyo qosolku uu ka buuxo ee uu heesaha kayin ka sameynaya sida yaanyashiid iyo waxyaabahaas oo kale Sharma Boy run ahaantii markaan fiirino in raabka dhinaca Soomaalida iyagoona aad ugu badnayn oo heese caadi oo iska degan ay Soomaalidu inta badan qaado haddana wuxuu keenayay mugtaa revolution isbedel ah in dhalinyartan ay raabka music ku ciyaaraya ay noqdaan kuwa aad ula jaan qaada laakiin waxaad moodaa in uu mustaqbalkii fankiisa iyo xiisihii ummadda Soomaaliyeed yar iyo weynba ay u hayeen inuu god iskaga riday oo waxyaabo badan oo deelqaafo oo cay iyo aflagaado uu kula kacayay Somaliland iyo Puntland uu kula kacayo ummad Soomaaliyeed ah oo marka la eegayo dadka isaga dhageystay siyaasiyiin maaha mana aha maxaan ku dhahaa dad meel ku kala qoqoban laakiin waa dad iyagu xortood freeska ah oo iyagu markaa daawada kolba wixii iyagu ay xiiseynayeen markuu dad markaasi uu dad aflagaadeeyo uu magac sheego yiraahdo Somaliland iyo Puntland uu yiraahdo taasi waxay noqonaysaa inay saameyn weyn ay ku yeelato sidii loo jeclaa runaantii loo xiiseynayay ayaa dhici karta ayna loo xiiseyn doonin haddeeto oo klibyada maanta ka baxay ay yihiin kuwa meel walba maanta yaala oo ku ah sumcad darro weyn oo isagu laftiisa uu isku soo geystay oo haba yaraatee uuna u dhaqmayn xitaa degaha dadka maxaan ku dhahdaa dhagaysanaya iyo dadka fiirsadaba run ahaantii kama xishoonin Sharma Boy taasina waxa uu keenaysaa in uu fankiisii uu noqdo mid aanan sidaa haddeeta loo xiiseyn waa siday aniga ila tahay shiki kuma jiro in dad badan ay dhibsadeen oo taa waad ila qabtaan markaan arkayna run ahaantii waxaan
waxaan dareemay yaab bay ilayna noqotay fajac waay marnaba kamaan filayna waxaan islahaa Sharma Boy dariiqii uu weligiiba ku taami jiray hadda ayuu dul joogaa waxaan malaynayaa markaasi inuu sii soconayo haddii tadhabadii uu helay inuu la tartami doono rapperska geeska Africa East Africa uu la tartami doono oo uu musigiisu meel gaari doono ayaan aaminsanaa hase ahaatee wuxuu muujiyey fashil wuxuu muujiyey dulqaad yari wuxuu muujiyey in uuna lahayn dulqaad uu ku wadaago uu ku adkaysto trollska ama internet trollska waxyaabaha dadka ay soo qorayaan aan dadna matelin waayo marka social media aad ku jirto fanaan tahay dad ay iska kaamaagaya bilaa sabab kugu soo maagi doona bilaa maxaan ku dhaahdaa iyagoona wax alla waxay kugu haystaan jirin kugu soo maagi doona dadka ku soo maagaya ku caayayana dad maxaan ku dhaha ka soo jeeda qoomiyad ama gobol ka soo jeeda ama magaalo ka soo jeeda maanuul walba way leeyihiin isagoo qofku uu aan reer Hargeysa ahayn ama reer Baydhabo aan ahayn baa dhici karto inuu ku caayo maxaan ku dhaha nin matalaya iska dhigo dadka uu caayo marka waxaan oran karnaa Sharma Boy godka gacmihiisu ku qotay isaga ayaa gacmihiisu ku qotay kabacdina waa isku aasay waayo hadalkii aflagaadada iyo cayda lahayd oo aan ku tilmaami karno qof bini'aadani kama duubi karo oo dadka qaarkood waa dareemi kartaa maskaxdiisu inay joogtay iyo inayna joogin siduu doonaba ahaado waxay ahayd hadal aan munaasib ku ahayn oo fanaan imika soo baxaya oo ummaddu xiisaynayso innagu waxaan ka hadlaynaa ereyada uu leeyahay iyo wuxuu sameynaya macna saas ma sameynayso laakiin sida heesihiisu dadku u isticmaalayaan aroosyada laga isticmaalayo munaasabadaha laga isticmaalo markaas fiiriso yes dadku way u dhiiranayeen way soo dhaweynayeen waxayna lahaayeen markaasi loo itiqaadsanaa Sharma Boy inuu yahay markaasi rising star xidig soo baxaya oo ay dadku aad u xiiseynayeen laakiin maanta waxaad moodaa in ay dadka intooda badan ay ku noqotay fajiciso ama kaag iyo layaab ay dhabanada haystaan markay arkeen Sharma Boy oo ay tamaya oo xitaa wuxuu ku caytamaya ay tahay cayda ugu hooseysa uguna foosha xun leh ee qof lagu caayo cid uu caayay ma garanay waxa ka muuqatay didid waxa ka muuqata rafaad waxa ka muuqata maxaan ku dhahdaa caaro israagtay waxay doontaba ahaato haddii horey loo xumeeyey maanta wuxuu ahaa nin waxyaabo badan oo dhiboo soo martay kasoo gelgeshay dadku codkiisa meeshuu soo dhigaba ay daawanayaan oo aad u daawanayaan oo xitaa YouTubekiisa oo kale ay ku xidhan yihiin in ka badan 100 iyo maxaan ku dhahdaa 20,000 ay ku xidhan yihiin waad garan kartaa marka laakiin maanta isaga ayaa maxaan ku dhahdaa shalay hadalkii uu isku soo saaray iyo xigmadii uu isku soo saaray iyo kartidii uu isku soo saaray haddana maanta isaga is aasaya waxa uu muujiyay san horeba u sheegay dulqaad yari wuxuu muujiyay inuuna lahayn samir uu wax ku samro oo dadka ugu dulqaato hadduu bilaabay balkan sawir gareeya Sharma Boy oo 10 sanadood fanka ku jira noqon lahaa masalan oo kale nimcaan hilaa oo kale noqon lahaa oo intaas sano ku jira oo video loo soo sameyn lahaa maxaan ku dhahaa been abuura uu noqon lahaa ka soo qaad dayax darnuusha 24 saac internetka lagu caayo trollska internet trolls hate comments wax walba loo qorayo haddana very smart dayax darnuusha nin dool cadeynaya oo maxaan ku aan muujinaynin maxaan ku dhahaa tamar yari aan muujinayn intuu falceliya aad ay u yartahay isaga iyo xaaskiisa balaaf lagaadayo 24 saac la yiraahdo waxaas tahay haddana wuxuu muujiyay dulqaad iyo karti iyo maxaan ku raganimo ayuu muujiyay uu hore ugu socdo oo fankiisa hore u dhaqaajiyay laakiin akiskii ayuu noqday Sharma Boy waxaana ay noqonaysaa in aanan fankiisii sidii uu dadku u xiiseynayay ayna haba yaratay u xiiseyn ama se hadallada maanta uu duubay ee cayda ah ay mar walba ugu jirayso taariikhda Sharma Boy oo aan oran karaynay on la istafiri karaynin inuu ahaa maxaan ku rahaa rising star xidig markaas soo baxaya oo dhalinyarta iyo jiinkay markaa yar
maxaan ku dhahdaa heesaynaya ama daawadaba raabka reer galbeedka daawada inuu runaantii u buuxin karayay oo Soomaaliya uu uga dhigayo heesiisu inta badan ay qosol iyo ay fani ahaayeen dad badan ay xiiseynayeen laakiin waxa weeyaan waxaan maanta oran karnaa wuxuu isku keenay fashil isaga ay isku keenay unprofessional qof aan maxaan ku professional aan ahayn weli wuxuu isku haystay inuu maxaan ku yahay Sharma Boy-gii aan la garanaynin maxaan ku iska xayraanka ahaa oo kale sidiisii ayuu maxaan ku u hadlay laakiin waxa weeyaan waa mid uu ka qoomamayn doono oo saacadaha soo socda inuu ka hadlo uu ka qoomamayn doono runaantii even hadduu xitaa raali gelin bixi waxa bixiya klibyadii halkaas ay ku jiraan ayada iyo aflagaadada uu sameeyeyna waa mid aad iyo aad xadgudub runaantii ugu ah haddii ay tahay bulshada Puntland iyo haddii ay tahay bulshada kale markaa Somaliland iyo gebi ahaanba Soomaalida oo dhan iyo taageerayaashiisii runaantii u ahaa daacadda ee mar walba dhegaysanayay inay Sharma Boy haddii taa u arkeen wiil fudud dulqaad aan lahayn aan samir lahayn aan wax badan xamil karin aanan rafaadka iyo tacadiga iyo dhibaatada badan ee ku soo wajahanayd laga yaabaa awno lahayn macnaha samirkii uu ku adkaysanayay uu muujiyay maanta bal ka waran inta dayacada nolosha ku dhacaysa haddii isaga ku dhici lahayd waxaan aaminsanahay gooraraba inuu maxaan kula kala qarxi lahaa wixii uu sameynayay markaad clipkaysa aad daawataan Sharma Boy waan fiirin doonaa sida uga falceliyo caydii iyo maxaan ku xadgudubkii uu sameeyay iyo saamaynta ay yeesho waxa laga yaabaa inuuna saamayn intaa leeg bay yeelan doontaa una islahayn oo dadku sidaas ay ula boodaya ayna islahayn laakiin maanta waa ogyahay waanan eegi doonaa saacadaha soo damba sida uga falceliyo iyo waxa ay la noqoto iyo wuxuu dadka ku raaligeliyo siduu dadka ula hadlo haddii uu markaasi ahaa maskaxdiisu joogin oo uu siday doontaba ahaatee uu cadhaysnaa oo qofku hadduu cadhaysan yahay uu wax damba kasti ku hadli doono waxaan ka dhul sugaynaa saacadaha soo socda halkaan naga socotaan janaalka nolosha maanta weeyi aad iyo aad baad u mahadsantihiin bye